asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Muxuu nabigeena Muxamed calayhi salaatu wasalaam inooga reebay oo inooga digay in aan afuufno cuntada iyo cabitaankaba? Afuufidda raashinku waa dhaqan ay dabeecad ka dhigteen oo ay maalin walba sameeyaan dad badan, gaar ahaana carruurtu. Balse ka hor inta aanan gudagelin mowduuceena, fadlan daawade ha iloobin muuqaalka inaad like saarto oo aad la sii wadaagto asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna, fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiira geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Can ibnu Cabbaasin radiyallaahu canhumaa, Allaha ka raali noqdee, waxaa ibnu Cabbaas laga wariyey أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إن نبي صلى الله عليه وسلم أرابي أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه إن ويلك لقد نفسده أما لا أفوفه. وحير النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء متكين هدي وحعبيه يوسن كن نفسن ويلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الله كرر لنقضي أبي سعيد الخدري أي وحى لقوريي أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب والطعام والرابي إلا أفوفه عبتانك أي عنتذبا. nabigu sallallahu calayhi wasallam ma ahan mid ka hadlaya rabitaankiisa ama hawadiisa, balse dhammaan waxa uu inoo sheegayay waxay ahaayeen waxyi ooga yimid xagga Alle subxaanahu wa tacaala. wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa. Sanado badan kadib ayaa waxaa yimid cilmi baarisyo waafaqay kalaamkii suubanaheena Muxamed calayhi salaatu wassalaam. Waxayna cilmi baaristaanu leedahay waxaa jirkeena ku jira nooc ka mid ah bakteeriyada oo waxtar leh oo aanan wax dhib ah u geysanin jirka bani'aadamka, taasoo cagsi ku ah bakteeriyada dhibaatada u geysata jirka bani'aadamka. Waxay jirka ka caawiyaan in uu ka hortago qaar ka mid ah cudurrada, waxaana qaar ka mid ah bakteeriyadan laga helaa dhuunta dhexdeeda. Balse markuu qofka bani'aadamka ah uu wax afuufo, waxay bakteeriyadan soo raacdaa oo ay la soo baxdaa hawada ka imaanaysa qofka sanbabihiisa. Kadib markay bakteeriyadan ay taabato ama ay ku degto wax kulul ama shay kulul, waxay isku beddelaysaa bakteeriya sun ah ama dhib geysanaysa, waxayna sabab u noqon kartaa in qofka uu ku dhaco cudurka kansarka ah. Rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam kama tagin shay dhib ah ilaa waa uu nooga digay sallallahu calayhi wasallam. Xaafid ibnu Xajar raximahullah wuxuu yidhi, sababta loo reebay in lagu neefsado cabitaanka iyo cuntada waxay tahay waxaa looga cabsanayaa in uu ku dhex dhaco wax ka mid ah qofka dhareerkiisa ama xaaqadiisa ama neef qurmoon oo ka timaada afka, taasoo kadibna cuntada ama cabitaanka ku sababi karta in uu shiiro, taasoo kadibna uu dhibsan karo qofkii cabayay naftirkiisa ama uu ka ash-ashi karo. In cuntada ama cabitaanka la afuufo oo la wasakheeyo waxay dabeecad u tahay dad badan, waxayna arrintaasi aad u xun tahay marka uu qofku wax la cunayo dad kale. Balse haddii uu qofku keligiisa wax cunayo ama uu la cunayo ahalkiisa, ama qof og in uusan waxba ka wasakhaynaynin waxa uu cunayo, wax dhib ah ma lahan. Balse mar walba waxaa habboon in aanan la afuufin raashinka, haddii aad keligaaga cunaysid iyo haddii aad dad kale la cunaysidba. Ibnul Carabiyina wuxuu yidhi, culimmadeennu waxay dhaheen in aanan la afuufin raashinka waxay ka mid tahay dhaqamada wan wanaagsan.
balse waxaa qofka xaaraan ka ah in uu walaalkiisa cunsiiyo wuxuu isagu wasakheeyey. Haddii aad afuufatay markii aad keligaaga ahayd oo kadibna qof kale uu kugu soo darsamo ama aad weelka siiso, waa in aad u sheegtaa in aad afuuftay. Haddii aadan u sheegin in aad afuuftay weelka, waxay noqonaysaa khiyaano. Khiyaanaduna waa wax aanan bannaanayn. Qurtubiyna wuxuu yidhi, sababta loo reebay in lagu dhex neefsado weelka waa in aanan lagu hallaynin dhareerka ama neef qurmoon oo qabsata biyaha. In la afuufo raashinka kululna waxay muujinaysaa in qofku uu ku jiro degdeg aanan wanaagsanayn iyo sabar la'aan iyo dulqaad yarida. Waana isku mid in aad gacantaada ku soo qaadid oo aad afuuftid iyo in aad weelka ku dhex afuuftidba, labaduba waa wax aanan wanaagsanayn oo kiraahiyo ah. Balse haddii ay jirto dan ama xaajo muhiim ah oo qofka ku qasbaysa in uu afuufo raashinka ama cabitaanka si uu u qaboojiyo, oo uuna u baahan yahay balse ay dhib ku tahay in uu sugo inta uu ka qaboobayo, markaas waxaa meesha ka baxaya kiraahiyada, sida ay caddeeyeen qaar ka mid ah ahlulcilmiga. Ugu dambeyntii, waxaan idinkugula talinaynaa in aadan afuufin raashinka kulul, maxaa yeelay waxay arrintaasi ka mid tahay dhaqamada wanaagsan ee uu na baray Nabigeena Muxammad calayhi salaatu wassalaam. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.